السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا عن عافيمات ما توحني وضع chicken salad وقدديني مانتا هذه بيوفضيت وين عافيمات بنت عتدان especially هدية اسكوديسو إن هذا إسكادينتو أما تهاي قف ربو إنه exercise بلاو هذه كو في عن تهاي قفك exercise كس بلاو أيو أو كو عصب وحي أسيادة نساء وحيلا energy وهري وصعده waxay kaloo kugu caawinaysaa inaad si degdeg ah weyd uu kaaga dhaco qofka ordo kale aad ay ugu fiican tahay hadii aad tahay qof ordo cuntadan aad ay kugu fiican tahay marka insha Allah taala waxyaalihi aan ku daray iyo sida uu diyaariyay daawasho wacan hadda waxaan ka bilaabayaa chicken tea waxaan halka ku haystaa 2 pound oo organic chicken breast ah oo ku daray simple marination waa yogurt saliid iyo spices guriga iyaala leh 30 daqiiqo ka hor aan sii diyaariyay intaan karin ka hor marka qudaartii aan sii jarnaa inta chickenka sugaayo qudaartii kala diyaarsanayaa ay grape tomatoes iyo waxaan ka diyaarinayaa xabad karoota ah lettuce liin dhanaan 4 xabo yar tuna ku daraa basal spinach salid xabad avocado cusbadi waxaan ku darsanayaa kabsar caleenta qalalan iyo oregano marka insha Allah taala intaas leen ka sameeynayaa qudaarta maadaama oo aan yareeyay aad u yareeyay fiidiyowga oo jaray qudaarta jarjarkeeda idma tusin muhiimna ma aha qudaarta waa soo jarjartay hadda waxaan sameysanayaa salad dressingki qaado 2 qaado saliid aan ku soo shubtay baaquliga waa extra virgin olive oil waxaan ku soo darsaday kabsar caleen iyo oregano hadii mid qoyin kabsar caleenta ay haysatid way fiican tahay laakiin ani mid qalalan la ii taala maanta cusbaan ku soo daray marka liinta yarta ku soo miiraya liintan waa 4 xabo oo liin dhanaan tayarta ah hadii ay haysatid liinta waaweyn 2 xabo leh kugu filan laakiin aniga midana maanta ii taala yarta ah marka liinta biyaheeda ku soo miiraya cuntadan waxa iga qaadatay markii lagu daro chicken karinteedii qudaarta jarjaritaankeeda ilaa miiska aan ka geeyo waxay igu qaadatay 20 daqiiqo kaliya aad iyo aad u fiican cuntadan waana fududahay waqti badan jikada kuma dhiminin marka waxaan ku soo daray xabadii tuunta ahayd waxa ay harayna ku soo daray qaada malaba marka diyaar waaye dressingka hal qaado qiyaastii waa hal qaado malaba marka hadda jikada soo karinaya qudaartiina waa ay diyaar grillkan ku soo tuurayaa grillka already wuu isi kululaaday hadii ay haysanin grillka dib malahan birta canjeerada oo kulul aad kor soo kor saaraysaa chickenta karinteeda waa isku mid muhiim ah meesha ku soo karisay maadaama maalin kulul ay ahayd aniga sidaas aan u isticmaalay grillka maalin kulul ay ahayd qiiqana ma rabin marka inaan guriga dab ku sii shido ma rabin maadaama ay kulul ay ahayd marka saas awgeed aanu isticmaalay grillka laakiin si kasto loo kariyaba inaad soo karisid laga rabaa chickenta muhiimada waxa waa inaad soo karisid marka labadii dhinac halkii dhinac 4 daqiiqo kariyay diyaar waaye qudaarta waa diyaar chickenta hadda yar si yar u soo jarjaraya chickenta karin podcast waa clean ma loogu talagelin hilib ceeriina iyo chicken ceeriina jista qudaarta leh loogu talagalay marka clean waaye sidaas aan ugu jaraya cuntada korkiisa marka ma sha Allah cuntadan sida u jeedin waqtiga ma gelin maanta qadadeena waaye oo ma karinay bariis pasta waxyaalahaas oo dhan ma isku daalinin ismaba dhibin at all marka aad u fududahay caruurta xataa way jecel yihiin cuntadan way ka helaan especially ilmaha markay soo weynaadaan
inay waxay barteen ay rabaan healthy lifestyle inay la baro oo ay cunto caafimaad la bartaan sida loo diyaarsado oo especially ilmaha saaid busy oo kale ardayda oo kale inay si dhaqso ah wax ku diyaarsan karaan oo kale u sahlaysaa aadayna u fiican tahay inay bartaan sababta mar waxa la gaaray ay gaarigooda wataan oo banaankaas ay joogaan maanta oo dhan marabtid inay maqaayad iyo drive through maraan oo cunto oo banaanka ay cunaan oo bartaan lifestyle oo xun bad habits oo caafimaad daro u keenaysa dhawtii marka saxankan weyn aan soo diyaariyay oo ku diyaarnaa wax walba qudaarta chickenka waxa dhan halkan weelan ku soo diyaarinaya saxamada already miiska ay igu diyaarsan yihiin marka laba qaado waaweyn saaraya qof kasta intuu rabo uu ka guranaya oo saxankiisa ku ridanaya cuntadan waliba waxay ku si fiican tahay hadii intii aad ka cuntid hadii wax yar aad ka cuntid hadii wax badan aad ka cuntid waa isla meeshii calorie badan ma lahan oo wax oo calorie ma leh marka cuntooyinkan waa cuntooyinka samarka loogu talagalay oo maadaama dadka ay rabaan inay lugeeyaan in badan weeda iska ridid oo in badan lugeynaysid kuleyl ku socotid qofku wuxuu bilaabaa inuu biyo badan cabo marka cunto badan qofka ma qaadayo ma xamili karo inuu cunto culus cuno marka samarka cuntooyinka light-ka ah oo waxa la badsadaa qudaarta badan si caafimaadkaada uu isku soo bedelo winterka oo kale cunto culus waa cuni kartaa waayo qofku wuxuu u baahan yahay cunto culus si uu a lot of calorie gubaya qofka markii to stay warm markii oo winterka ay tahay laakiin xiliyadan oo kale qofka uma hayo boos cunto badan iyo cunto culus cunto light ah oo salads ah inuu cuno raba oo u fiican noocaana u fiican marka maalin dhaweyd salad noocaana oo sweet potato laga sameeyay soo galiyay salad badan oo kalena waa soo wadaa insha Allah taala waad ka heli doontaan salad badan oo soo wadaa insha Allah taala marka hadii videoga ka hesheen walaalka la share gareeya subscribe like insha Allah qadadeen intaan waay maanta bariis male baasta male caaw waxaan karin doonaa soup oo laga sameeyo khudaar waay cashada qadan waa intaan marka insha Allah ka faa'iideyso wacan waa kuma santiin daawashadina wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh